maalmihii la soo dhaafay waxaan ku guda jirnay si aan runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidii looga wacyigelin lahay ama ay runtii uga diyaar galoobi lahaayeen ama looga hortagi lahay qataraha cudurkan iyo saameynta uu ku yeelan karo arrintaas runtii dadaal badan aan ka muujinay aniga uga mahad celinay runtii guud ahaan in allaala inta ka shaqeysay gaar ahaan hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo arrintaa runtii waqti badan ku bixiyay iyo dhammaan hoggaamada kale iyo qaybaha kale ciidanka oo runtii si tacadir leh ugu dadaalay sidii looga hortagi lahay aad iyo aadna waxay muhiim u tahay rabaa inaan runtii halkan maaseedkaas aan u marsiiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ay raacaan tilmaamaha iyo muxuu ahaa sheegay talooyinka caafimaadka tiimka caafimaadku ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin arrimahaas oo runtii nacaawin kara oo naga caawin kara qataraha cudurkan sidii aan uga hortagi lahaynay iyo faafitaankiisa intaba sidii aan tacadir dheeri uga muujin lahaynay waxaan rabaa si kale inaan guud ahaan aan shacabka Soomaaliyeed aan ula wadaago ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba iyo meel walba inuu diyaar u yahay ka qayb qaadashada qatar kasta ee ku timaada ummadda Soomaaliyeed sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen oo kamid ah taas oo kamid ah muxuu ahaa sheegay waajibaadkooda iyo shaqooyinkooda ay leeyihiin oo waajibka ku ah runtii aad ayaan ugu diyaar garownay waxaana diyaar u nahay runtii in allaala iyo inta karaankeenna ah ee aan awoodi karno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka qayb qaato aad iyo aad u mahadsantiin